howlgalkan oo ay si wada jira u fulinayeen ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa aroornimadii hore ee saaka waxa uu ka bilowday xaafadaha kala duwan ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose taasi oo ay dhawaan ku soo laabatay gacanta dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. Cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu arkiyay guryaha iyagoo mid u baarayay isla markaasina dadka dibadda u soo saarayay si ay u baaraan guryahaasi. sidoo kale goobaha baaritaanka maanta lagu sameeyay ayaa waxa kamid ah iskuulada waxbarashada iyo goobaha caafimaadka ee farakutiriska ee ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada maanta howlgalkan ka sameeyay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay soo qabteen dhalinyaro aad u fara badan oo looga shakisan yahay inay kamid ahaayeen xarakada Al-Shabaab. inta uu soconayo howlgalkan baaritaanka ah ayaa amniga guud ee degmada Afgooye waxa sugayay ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya qeybihiisa kala duwan sida militariga, booliska iyo nabad sugidda. saraakiisha ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen howlgalka maanta laga fuliyay degmada Afgooye in looga gol lahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee gobolkaasi. agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada Afgooye ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalkii maanta ay ciidamadu sameeyeen isagoo intaas raaciyay in ay ciidamadu soo qabqabteen dhalinyaro aad u fara badan isla markaasina uu soconayo baaritaan la xiriira arrinkaasi. waxaan runtii sidii kaalinteennaba ahayd si aan u buuxino kaalinteena ka banaanaatay degmada Afgooye oo ahaa rule of law-gii in la soo celiyo isla markaasna degmada maamulkii caadiga ah maamulkii madaniga ah iyo hay'adaha amniguba inay si toos uga howlgalaan ayaa lagu tashaday. taas inagoo ka ambaqaadayna saakay subaarortii hore ayaa la yimid halkan wuxuu ilaa isla markii aan nimidba waxa la bilaabay runtii howlgallo xoogan oo magaalada daafaheeda oo dhan lagu sameeyay waxaana lagu soo qabqabtay dad aad u tiro badan oo hadda kala soocistoodii ay socoto isla markaasna wixii noqda kooxihii nabadiidka ahaa ee alqaacidadii Soomaaliya loo taxaabi doono xabsiga wixii kale oo iska shacabana ay maaragtay noloshooda caadiga ah iyo howlahooda iska wadan doonaan. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Shariif Sheekh Amaya ayaa waxa uu sheegay in la geeyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ciidamo ka tirsan booliska iyo nabad sugidda Soomaaliya kuwaas oo xaqiijin doona amniga guud ee gobolka gaar ahaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isagoo ugu baaqay dadweynaha gobolka Shabeellada Hoose in ay la shaqeeyaan ciidamadaasi. marka alxamdulillah ilaahay ayaan mahadinaynaa guushi ay gaareen ilaahay ayaa noo gargaaray nimankii cadowga u ahaa wadanka iyo dalka haddii ay ka saareen degmada Afgooye waa alxamdulillah waajibaadkooda way ka baxeen. annaka haddaan nahay booliiska maanta laga bilaabo hadda ayaa xil naga saaraan inaan sugno amniga iyo nabadgelyada degmada iyo nawaaxigeeda. marka halkaas saaka waxaan u soo kallaxnay booliiska iyo nabad sugidda iyo ciidanka kale markii hore waa joogeen waxaan halkaa u joogno maantaan u nimid inaan markii hore baaritaan dhab ah inaan sameeyno waana ku dhaqaaqnay baaritaan ah xaafad ayaan u baarnay. hadda ka bacdina ciidan oo booliiska ah iyo ciidan nabadgelyada nabad sugidda ayaan dejinaynaa halka si joogto ah howshooda waajibaadka ka saaran wadanka iyo dadkaba inay halka ay ka fuliyaan. howlgalkani ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmo ka hor dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay ku soo biirtay gacan ku haynteeda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Ibrahim Maxamed Hussein, Ibrahim JK, Universal TV, degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.